xididada marka hore sidan ayuu dhiig u qulqulayaa, sidan ayuu dhiig u socdaa oo saa u jeedaan waa iska caadi. waxyar kadib fiiri maxaa dhacaya in xididadii ay saas usoo xirmaan ugu dambeyn gebi ahaanba ay sidan u xirmaan. hadda qulqulka dhiigga wuu joogsaday saa u jeedaan. waxaan soo xiray meesha waa dufinkii, ama si kale daa u dhiga waa xeertii, si kale daa u dhiga waa cadiintii. micnaha saa u fahantaan. marka in cholesterolka ama dufinka uu ku bato jirkeena ama xididada dhiiggeena waa xaalad halis gelin karta xubnaha jirkeena shaqada muhiimka u haya sida wadnaha, maskaxda iyo kuwa la midka ah. inta badan bulshadeena waxa aan cunaa cunto aan isku dheelitirnayn, sidoo kalena ma sameyno jimicsi oo waxaa nagu badan fadhiga iyo jiifka, waana sababta keentay in miisaankeena kordho, dufinkana ku bato jirkeena, taas oo halis caafimaad ku ah shaqada ka socota jirkeena. insha allahu cashirkeena maanta waxaan ku sharxi doonaa dufinka nooca xun ee loo yaqaano bad cholesterol, kaas oo haddii dhiig ku bato keeni karo inuu gebi ahaanba istaajiyo isu socodka dhiigga, misna uu xiro xididada dhiigga, taasoo ugu dambeyn sababi karta in xubnaha jirkeena ugu muhiimsan ee shaqada joojiyaan sida wadnaha, maskaxda iyo kuwa la midka ah, taasoo halis gelin karta nolosha qofka. waxaan kula wadaagi doonaa cuntooyinka badiya dufinkan xun si aad uga taxadirto insha allahu, iyo haddii uu bato calaamadaha qofka soo muuqanayo, dhibaatooyinka dhalan kara iyo sida loola tacaalo ama loo daaweeyo insha allah. sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa cuntooyinka aadka u fiican inaad isticmaasho si khatartan aad uga hortagto. ugu dambeyn waxaan bixin doonaa talooyin wacyigelin muhiim ah oo ku aadan xanuunkan. ka faa'iidaysi wacan, la wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iidaystaan. magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq. soo dhawaada mar kale. kala soco barnaamijyo caafimaad oo taxan ah, talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda. si aad si fiican igula fahantaan halka cilada ka imaanayso asalkeeda, ila fiiriya sawirkan hortiina ka muuqda. okay, saa u jeedaan waxaan waa cuntadii, waa tusaale oo kale. waxaana waa beerkii, kanna waa mataqaanaa xididada dhiigga oo tusaale ahaan loo soo qaatay. marka falaartan gaduudan ay kasoo baxayso cuntada, sidoo kale kasoo baxaysa beerka, waxay toos u galaysaa xididada. sidoo kale falaartan oo buluuga ah ee kasoo baxaysa xididada waxay toos usoo galaysaa beerka. marka waxaa loola jeedaa xaaladan yacni halka dufinka yacni xun oo ka imaan kara. wasaa ujeedaa meesha waxaa ku qoran LDL cholesterol. dufinka xun waa midkaas. LDL-ka waa mataqaana protein yacni xambaara ama qaada dufinka suu dhiig mataqaana u dhexmari. sababtoo yacni saa ognahay dhiig waa biyo, marka dufinka iyo biyaha isma qaataan saa ognahay. hadda gacantada haddii dufin leedahay aad dhaqdo oo kale yacni ma dhaqmayso ilaa ooma inaa u raadismaan. marka dufinka iyo biyaha isma qaataan, marka wax dhexmari ay u baahan tahay. marka proteinka LDL-ka, marka cholesterolka xun waa midkan LDL cholesterol la dhaho. midkan kale oo gaduudan waa midka macnaha midka xun. midkan kale aa ujeedaan kasoo baxaya xididada dhiigga beerka soo galayn waxaa la dhahaa HDL, high density lipoprotein aa la dhahaa. kaas kalena kor waxaa la dhahaa low density lipoprotein. marka midkaana cuntadii aa cuntay dufinkuu kasoo qaaday iyo beerka dufinkuu kasoo qaaday dhiigga soo gelinaya, daad soo loo dhahay mid xun waa. midkan kalena dhiiguu ka nadiifinaya. midkan kale oo hooso HDL ay ku qoran tahay dhiiguu dufin ka nadiifinaya micnaha oo yacni wuxuu ku xareynayaa beerku ku xareynayaa. marka midkaas korena waxa loo dhahay wuu xun yahay. waxa waaye cuntada dufinkii aa kasoo heshay iyo beerka wixii ku jiro inuu soo qaado wuxuu keenayaa dhiigga, taasna halista ay leedahay waa isla arkaynaa. midkan kalena wuxuu sameynaya wixii dufin dhiig ku jiro ka qaadaya beerka ayuu ku xareynayaa. marka farqiga u dhexeeya saas waa. midkaana loo dhahay good cholesterol, mid fiican waa loo dhahay. midkan hoos xariiq aan saaray. midkan korona loo dhahay bad cholesterol ama cholesterolka xun waa micnaha. midkan koro LDL-ka oo laga soo gaabiyey low density lipoprotein. marka inay kala fahanteen ayaa rajeynayaa dufinka asalkeeda nooca xun halka ay ka imaan karto ama halka ay ka imaanayso. markii dufinkaas dhiigga ay ku badato oo qofkan iska control oo jimicsi wax lamid oo sameeyna, cuntooyinkoosan iska control ama miisaankii wax lamid oo iska ridin, oo qofka jiifkiisa fadhigiisa oo badan yahay, waxaa dhacayo sida muuqaalka hortiina yani ka muuqda fiiriya si fiican igula fahantaan. xididada marka hore sidan ayuu dhiig u qulqulayaa, sidan ayuu dhiig u socdaa oo saa u jeedaan waa iska caadi. waxyar kadib fiiri maxaa dhacaya in xididadii ay saas usoo xirmaan ugu dambeyn gebi ahaanba ay sidan u xirmaan. hadda qulqulka dhiigga wuu joogsaday saa u jeedaan. waxaan soo xiray meesha waa dufinkii, ama si kale daa u dhiga waa xeertii, si kale daa u dhiga waa cadiintii. micnaha saa u fahantaan. marka
way xiraysaa albaabka dhan ay xiraysaa marka haddii ay xirto maxaa dhacayo saa u jeedaan waxaa dhacaya in dhiigga uu gudbo waayo hadduu dhiigga uu gudbo waayo waxaa dhacaya dhiiggaas meesha loo wado xubnihii loo waday inay mataqaanaa shaqada joojiyaan ileen dhiig ma helayaan wadnaha haddii loo wado maxaa dhacaya ileen wadnaha naftarkiisa dhiigoo bam garayaa sax jirka dhiigoo siiya laakiin asaga naftarkiisa dhiigaa la siiyaa oo xeed la dhaha corona artery jiro oo wadnaha yacni dhiig siiyo soo shaqadiisa u guto muruqa wadnaha macnaha iyo marqaad si gud wadnaha dhiig siiyo soo shaqadiisa u guto marka xididada markay saan oo kale u xirmaan saa u jeedaan hortiina ka muuqata xididka nooca xidid ee xirmay ayay ku xiran tahay yacni dhibaatada intay la ekaan karto marka haddii qof iska control waayo dufinka ama ugu yaraan yacni jimicsi samayn waaye waxaa dhacaya in dufinkii iska qabsado sida hortiina ka muuqata mise uu xiro xididada marka saa markay u xirmay marka waxay ku xiran tahay meesha ay ka xirmatay ku xiran tahay haddii xididka xirmay oo yahay kii wadnaha dhiigga siinaya waxaa dhacaya in wadnihii mataqaanaa shaqada uu joojiyo waana xaalad halis ah haddii xididkaas uu yahay mid maskaxda gala oo maskaxda quudiya hadduu yahayna waxaa dhacaya in stroke waxa la dhahaa qofka uu ku yimaado oo dhiig dhan uu ka xirmo oo maskaxda ama qayb ka mid ah ay dhimataba taasna waa xaalad kaloo halis ah haddii lugaha oo kale peripheralka uu yahay ama gacmaha ama lugaha oo kale saa u jeedaan waxaa dhacaya mataqaanaa qaybta dhan oo dhiig ka xirmay inay madoobaato wayna dhacdaa dadka marka waa xaalada halis badan inaa fahanteen ayaa rajaynayaa sababta loo diidayo qofka in dufinka xun oo jirkiisa ku bato sida caadigana dufinka jirkeena uu u baahan yahay oo hormoono ayaa yacni sameynteeda ka qayb qaataa oo fitamiino sida fitamiin d iyo wax lamid ah oo jirkeena muhiim u ah yacni ayaa yacni la-aantiis lama soo saari karo yacni dufinkan sidoo kale unugyada membrainkooda ama xuubkooda oo kale integrity waxa la lahaa yacni oo ka qayb qaata marka waa muhiim unugyada muhiim u yahay hormoonada muhiim u yahay fitamiinada jirka muhiim u yahay laakiin inuu si ka badbadaysa dhiig ugu bato u dhex eegaaga lama rabo qofku waxaa la rabaa inuu dadaal badan sameeyo jimicsi badan sameeyo cuntada iska kontroolo iska dheelitiro macnaha waxyaabahaasaa loo baahan yahay marka sidee ayaa ku fahmi kartaa in dufinka midkiisa xun jirkaada ku badan yahay sida caadiga ah ma jirto calaamado soo muuqdo waxaa laga yaabaa midkan xididkan wadnaha oo kale qof markuu xirmaayo wax lamid ah in mataqaanaa xabad xanuun iyo wax lamid oo dareemo laakiin inta badan qofka calaamad iskuma arko oo hal mar iyo xanuunka inta badan soo ritaa maadaama laga yaabo xididada saas u xirmeen ama يعني cholesterol ama dufinka meesha ku sameysmaa laga yaabaa qayb kamid mararka qaar inuu goodo dhiigga ay raaco si uu sii socoto xididada mar walba sii socdaan way sii yaraadaan marka ugu dambeyn waxaa laga yaabaa xididka inuu afka qaybta dambe ka xiro ama lugta ha noqoto ama meel kale ha noqoto xididku yaala yani inuu xiro markaas xididku ku aaday ku xiranta marka taas ayadana waa xaalad mataqaanaa halisa marka calaamada caadi ah oo kasoo muuqda ma jiraan qofka sidaas darteed waxaa lagula taliyaa qofka 4 sano ama 6 sano mar inuu iska jaagareeyo doo mar sanad walba iska jaagareeyo way fiicanta laakiin 4 sano iyo 6 sano mar inuu iska jaagareeyo yani ayaa lagula taliyaa oo istaal tago oo isbaaro oo iska fiiriyo yani heerka dufinka oo macnaha qofka xarun caafimaad oo tago oo iska jaagareeyo heerka dufinka ee dhiiggiisa soo ula socdo xaaladiisa caafimaad sababtoo ah waxaa jira noocyo la kala dhaxla ayaa jirto oo loo yaqaan familial hypercholesterolemia marka inaad iska baarto oo yani aad iska hubiso waa wax fiican 4 sano 6 sano hal mar sidoo kale waxaa fiican yani inaad iska kontroosho cuntooyinka dufinka ku badan yahay sida yani doorada hilibka cadiinta la sida hortiina ka muuqata hamburgerka biisada iyo jibsiga subaga ice creamka ama jalaatada ukunta qaybteeda jaalaha ah noocyo kamid ah mataqaana malaayga sida hortiina ku qoran sidoo kale waxaa fiican yani malaayga oo dhan ma noocyo kamid ah waay macnaha sidoo kale waxaa fiican inaa mar walba yani jimicsi aad sameyso sidoo kale habeenkii yani aadan cunto badan ama cunto badan oo dufin leh wax lamid ah aadan cun cholesterol kaliya kamid yimaada cunto dufin leh cuntada caadiga ah cunto glucose beerka marka la geeyo ama yani aaba waxaa loo bedelaabo mataqaana astaalko baruufeed kadib astaalko waxa la lahaa kadib waxa loo sii bedelaa mataqaana cholesterol oo wax iska dhib badan waaye yani meelo kala duwan ayuu ku yimaadaa marka waa maxay calaamadaha lagu garto saar u soo sheegnay calaamada gaar ah ma lahan oo yani qof ka soo muuqanaya ma lahan kaliya waxaa la arkaa xaaladda qofka markay mataqaana khatar gasho arrinkaas oo arrin yani halis badan ah marka waa maxay waxyaabaha qofka u nugleeyo inuu mataqaanaa cholesterolkiisa ziyaada xaaladaha halista badan leh oo wadnaha iyo maskaxda iyo jirka si guud dhibaatada halista u keeni kara waa maxay waxaa kamid haddii qofka cuntadiisa uusan qaabeynin oo wuxuu arkaba iska cuno dufunku arkaba iska cuno yani si control la-aan ah haddii uu cayilo miisaankiisa oo body mass index waxaa la lahaa jira marka yani cayilkiisa qofka loo qeybiyey
macnaha miisaanka qofka oo loo qeybiyo dhirirkiisa laba jibaar wixii kasoo baxa hadduu noqdo 30 iyo wax ka badan khatar weyn ama halis ugu jira hadduu jimicsi badan sameeyeen saa dhowr mar hadda aan sheegnay halis badan ugu jira hadduu sigaar cabo oo kale wuxuu saameeyaa nooca fiican oo HDL-ka laha marka waa halis asigana oo hoos u dhigaa hadduu alcohol ama khamro cabo oo kale khatar ayuu ugu jiraa markastoo age-kiisa qofka uu ziyaado oo 40 yani wax ka mid ah oo dhaafana يعني قطر أيوه جرا ما دام قف عنده ينقلدون وحياة بقلدون واستعمال حياديس وحساب جلعان ونقلانين مركب وحياة فربنا هاجر قف كذا مو وداديس السوينات ذمو متقانا أو يعني ونقل هذا واحد مركز وداديس السوينات معنا مركز ونقل هذا واحد سوق الآن داوين كقار إن كوا كانسر كله استعمال كوا ديكر كله استعمال كوا HIV كله استعمال كوا وضنا حنون كوا حلا مد الله استعمال أيضا دتكاس يعني ونقول هنا على ده ونقولين كران داوين كاس سوق الآن قف كدي حبين ديركيس اللي جنب حي كلي وحلا مد organ transplantation حلا عدي الله سميه وكلا أصلاً ونقولان كرا على ده marka sida looga hortagaa xanuunkan ka hortagiisa yani way fududahay marka la fiiriyo kaliya waxa la rabaa qofka cuntada inuu iska kontrolo sidoo kale ma taqaan qofka doo miisaankiisa oo ziyaadana hoos u dhigo jimicsi fara badan sameeyo stresska iyo waxaas oo iska limit gareeyo yani sigaariga waxa doo cabo kale oo iska joojiyo iyo alcohol iyo khamriga wax la mid oo iska joojiyo yani intaasa ugu muhiimsan haddii family ay tahayna oo dhaxaltooy wax ka soo raacay mar walba qofka inuu isjeegarayo macnaha soo cuntada is control wax inuu isjeegarayo way fiican tahay sida haddii waalidkiis wixiisa oo ka dhaxlay ciladaas yani oo in xaaladaas yani uu nugul yahay kala yani aydan way fiican tahay mar walba yani iska jeegarayo iska fiiriyo marka sidee loo baaraa cholesterolka waxa laga baaraa dhiiga waxa la baaraa wax loo yaqaan yani baaritaan noocan macnaha waxa loo yaqaan lipid panel waxa la fiiriyaa ama lipid profile si kala daawdigo marka baarista marka waxa la dhahaa inta aan qofka la baarin ka horo waa in 9 saac ilaa 12 saac xiriir ah oo san cunto cunin waxaan biyo ahayn oo cabin biyo caadi watarka caadi biyaha caadiga waxa ahayn oo san cabin Soomaali inta badan way qariyaan istaalada markay imaadaan wuxuu asoo saak soo quraada waxa laga yaabaa maxal 4 saac cunto badan cunin inuu dhaho dhakhtarka waxba ma cunin marka heerka cholesterolkiisuna wuxuu ahaa laga yaabaa يعني marka daawan in la soo siiyo marka inta badan qalad waa taas waxa fiican in runta iska sheegto marka istal tagto yani aad dhahdo waxba soo ma cunin marka adoo saak soo quraacad marka dhahdo iga jeegray ama iga fiiri heerka dufinka yani waa iska dib badan tahay marka noocyo kala duwan ah jira nooc la fiirinayo ku xiranta laakiin si guud waxa fiican ama sax ah 9 saac ilaa 12 saac oo xiriir ah qofka soo waxba cunin inuu mataqaana istal ka tago yani sidaasna baaritaanka يعني لو سمايو ayaa fiican si loo ogaado marka si guudna waa loo baaraa cholesterolka si gaar noocyo gaarna waa la fiiriyaa LDL-ki wax la mid ah si guudna cholesterolka heerkiisana waa la fiiriyaa marka natiijadu waxay ku xiran tahay halbeeg la isticmaalay ay ku xiran tahay natiijada oo halbeeg la isticmaalay yani wadamadan way kala duwan yihiin halbeegyadu way kala duwan yihiin dadka istaalada qaar ama wadamada qaar waxay isticmaalaan milligram per deciliter istaalada qaar waxay isticmaalaan millismol per liter marka noocay ku xiran tahay dadka qaar waxa laga yaabaa inay ku dhahaan hadda ka hor waxa la soo dhahay 200 oo dhaafay haddana inta waxa la soo dhahay yani laba waaye marka maxaa farqiga u dhaxay marka halbeeg la isticmaalo ku xiran tahay soo kale ku xiran tahay nooca laga fiiriyo ku xiran tahay oo si guud ma laga fiiriyo mise gaar ah marka kala duwanaansho badan ayaa jirto marka maadaama ay shaqo ku lahayn dhakhtarku wuxuu ku dhahay inaad qaadato waa muhiim iyo talooyinkiisa wixiisa daawadan waxay ku xiran tahay yani mataqaana heerka iyo xaaladiisa marayso haddii cuntooyinka wax laga control karo jimicsi sameyn karo waa okay inta lagu ekan karo hadduu zaid u badan yahay daawooyin la sii ayaa jiro marka insha Allah taala mar walba waxa fiican qofka inuu isjeegarayo misbaaro ina faantaan ayaa rajaynaya insha Allah taala ku soo koobayna wixii wala qabtaan qayb faalada ma kumatiin oo reebo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته